الرحمن الرحيم وبنا نستعين على أمور الدنيا والدين. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta waqti ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha dowladgoboleedka Puntland oo ay la socdaan madaxweynihii hore waxaan faroolay iyo waqti ballaaran kale inaad maanta loogu timaadaan munaasabadan qadarinteeda iyo xushmadeeda iyo ixtiraamkeedaba kulli aan idin hayno. waxaan idin leenahay ku soo dhawaada magaaladiinii iyo dhulkiinii aad baan idinkaga mahad celinaynaa imaatinka aad noo timaadeen iyo safarka aad u dheer ilaa iyo meel aad fog aad ka soo safarteen oo aan garan karayna culayska iyo miisaanka uu lahaa. waxaan rajaynayaa insha Allah imaatinkiinani inuu noqdo fure wax badan oo xal iyo wanaag iyo horumar intaba keenaya. aadna aan ugu faraxsanahay inaan maanta aan soo nimaadno wixii wara dib baan u dhigan doonaa madaxweyne ku soo dhawow Kismaayo. aad baan kaaga mahad celinayaa imaatinka adiga waqtigaaga waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. madaxweynaha dowladda Jubbaland, madaxweyne ku-xigeenada, gudoomiyaha baarlamaanka, madaxweynayaashii hore ee Galmudug iyo Hirshabeelle ee Koonfur Galbeed, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland, dhammaan inta halka joogta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii aad baan ugu faraxsanahay sida diiran oo dowlad iyo shacabba maanta nala soo dhaweeyay. waan ka mahadnaqaynaa, waa waajib na saarnaa maadaama ay madaxweynuhu horay dhowr jeer u noo soo booqday inaan annagana u soo booqanno la wadaagno farxadaha iyo murugadaba. waxaan rajaynaynaa haddii ilaahayna muddada aan joogno in arrimaha muddadii u dambaysay Jubbaland ka jiray aan wax ka galno haddii ilaahayno. deegaanada dowladaha xubnaha ka ana waxay rabaan midnimo dhexdooda ah, dowladda Soomaaliyeedna waxay rabtaa midnimo guud oo dadka u wada horseeda in bulshada Soomaaliyeed loo adeego. waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis maalmaha halka la joogo in wax badan la isweydaarsan doono, culaysyada siyaasadeed ee dalka jirana ay ambaqaad u noqon doonto. waxaan ku kalsoonahay ilaahay idinkiis in wax kastoo kala aragti duwanaana xal waara laga gaari doono, horumar iyo wanaag iyo dowladnimona wadadeeda la qaadi doono. aad baan iga mahad celinayaa.